dowladda federaalka ee Soomaaliya gabi ahaan waxay iska diiday in wax banaanbax ah lagu dhigo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka amarkii ugu dambeeyay ayayna sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya ay soo saartay ciidamo fara badan ayaa lagu daadiyay wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kuwaas oo looga soo horjeedo in mucaaradku ay wax dhaqdhaqaaq ah ay ka sameeyaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka hoyga magaalada Muqdisho uu ka degan yahay ra'iisul wasaaraha hore ee dalka xasan cali khayre ciidamo ayaa la dul dhigay dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed iyo sidoo kale xaaladda magaalada Muqdisho way isbedeshay Shariif Sheekh Axmed waxa uu guuray Marinaayo halka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Cabdiraxmaan Odowa iyo sidoo kale Cabdikariin Xuseen Guuleed ay iyagana ay markaasi u guureen dabdamiska waxaynu eegi doonaa aagaga kala duwan ee markaasi la isku kala qaybiyay iyo tallaabada ay dowladda federaalka Soomaaliya ay qaaday ciidamada haramcad iyo ciidamo kale ayaa lagu daadiyay wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo taliska qaybta booliiska gobolkana waxa ay amar guud ay ku bixiyeen in wax dhaqdhaqaaq iyo wax tallaabo aan la sameyn karin wadooyinka qaarkood ee magaalada Muqdisho durbaba dadka waa loo diiday waxaynu si guud aynu u dul istaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Muqdisho iyo sidoo kale abaabulka xilligan ay wadaan mucaaradka iyo go'aanka ay qaadatay dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada lagu daadiyay wadooyinka Muqdisho marka hore soo dhawaada daawadayaal taariikhdu waxay ku beegan tahay 9 bisha shanaad ee May ee sanadka 2026 haddii aynu ku bilowno dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ciidamo fara badan waxa ay ku daadisay wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka goobaha qaarkood waxa loo diidayaa xitaa dadka shacabka ah in ay lug ay ku maraan gaadiid inuu maray iska badaayay arintan ayaana sidoo kale waxay tahay mid si guud looga hortagayo dhaqdhaqaaqyada iyo tallaabooyinka ay qaadayaan xubnaha mucaaradka ee iyaga markaasi ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Muungaab wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyo mas'uuliyiin kale oo iyaga shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho waxay gabi ahaan bay diideen in banaanbax lagu qabto magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka dhammaan mas'uuliyiintan waxay markaas u diideen banaanbaxan in lagu qabto magaalada Muqdisho sabab la xiriira in amni darro ay keenayso isla markaana mucaaradku ay ka shaqeynayaan xasilooni darro taasoo ay tilmaameen in ay tahay mid kaliya oo aan xilligan markaas aan la aqbali karin go'aankan ee markaas ay qaateen mas'uuliyiintan ayaana sidoo kale waxay u muuqataa mid lagu sugayo amniga guud ee magaalada Muqdisho halka mucaaradku ay iyagana ay markaas ay sheegeen in banaanbaxoodu uu sameeyay mid rabshado wato laakiin uu yahay mid cabasho ah isla markaana dad shacab ah markaas dhulalkoodii laga barakiciyay oo ay dowladda federaalka Soomaaliya cadaalad darro ay ku sameysay xubnaha mucaaradku waxay sidoo kale tilmaameen inta markaas dadkan xuquuqdooda iyo xaqooda ay ka helayaan in banaanbaxan uu sii socon doono isla markaana aysan jiri doonin wado kale oo markaas dib loogu celinayo sida ay tilmaameen xubnaha mucaaradka iyaga ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu tilmaamay in banaanbaxan birrito oo kaliya uusan ku ekeen laakiin maalmaha soo aadan uu ka sii dhici doono magaalada Muqdisho inta markaas dadka xuquuqdooda lagu tuntay ay heli doonaan xaqii dastuurka uu siiyay isla markaana dowladoodu ay markaas ay ku lahaayeen Khayre waxa uu sidoo kale uu tilmaamay in dowladda federaalku ay dadka shacabka ay ka xushin weysay laakiin kacdoon lagu furayo isla markaana cadaadis la saarayo si ay kaga laabato dhibaatada ay dadka qaarkood ay u geysanayso dowladda halka dadkii hore markaas loo dhibaateeyay magdhow markaas loo siin lahaa arintaasi waxa ka jawaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Muungaab waxa uu tilmaamay in dadka shacabka markaas ay iyagu ay yihiin kuwa xaq markaas iska leh waxa uu tilmaamay banaanbax dastuuri ah la dhigi karo waxa uu sheegay banaanbaxa loo asteeyay garoonka Injineer Risow ee magaalada Muqdisho in ay kaga qayb galaan laakiin aanan meel kale loo ogolayn sida uu markaas uu tilmaamay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Muungaab Masar Muungaab waxa uu sidoo kale uu tilmaamay in wixii intaas ka soo haro ay tahay markaas baadil isla markaana lagu xadgudbayo nidaamka dowladnimo iyo amniga magaalada Muqdisho waxa sidoo kale uu shaaciyay in gabi ahaanba dowladda Soomaaliya ay joojisay
barakicintii markaasi laga sameynayay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho isla markaana dadku ay muhiim ay tahay in ay u hoggaansamaan arrintan la xiriirta in ay sharciyada ay markaasi maraan waxa uu tilmaamay ciddii markaasi hore looga qaatay dhul isla markaana dhulkeeda sabar looga ama cadeyn iyada u haysato in ay markaasi ay la xiriirto maxkamadaha awood u leh waxaana uu sidoo kale uu tilmaamay in dhulkooda loo celin doono waxa sidoo kale uu shaaciyay dadka kale iyagana markaasi ka cabsi qaba in xilligan barakicin lagu sameyn doono in aysan jiri doonin wax barakicin oo markaasi lagu sameynayo dadka shacabka ee Muqdisho haddii aynu mucaaradku u soo laabano mucaaradka ilaa 3 aag oo kala duwan ayay isku kala qaybiyeen aaga koobaad ayaana sidoo kale waxaa aaday madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarkeed ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed Shariifka waxa uu aaday xaafadda Miranaayo ee degmada Cabdilcasiis oo ka tirsan gobolka Banaadir ee Muqdisho Shariifka waxa uu sidoo kale uu carqalad uu kala kulmay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo isuristaag ku sameeyay markii hore in uu markaasi xaafadaas u gudbo laakiin ugu dambeyntii waa loo ogolaaday in uu markaasi u gudbo isla markaana xilligan waxa uu kulan degdeg ah uu la leeyahay qaybaha kala duwan iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ee xaafadaasi Shariifka ayaana sidoo kale mas'uuliyiinta uu kulankan uu la leeyahay waxa uu kala hadlayaa sidii markaasi loo sii xoojin lahaa barnaamij nabdoon in uu ka dhaco magaalada Muqdisho isla markaana Cabdilcasiis ay wacdaraheeda ay dhigto oo dowladda midkii ugu weynaa markaasi laga sameeyo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka isla markaana dowladda Soomaaliya la tuso awoodda ee markaasi ay leedahay iyo sidoo kale in dalaabooyinka qaarkood ay qaadayso aynan ahayn kuwa markaasi sharciyad ay u siinayso dowladdu dhul burburinta iyo sidoo kale xadgudubka markaasi lagu sameynayo dadka shacabka ah Shariifka hadda kulan ayuuna sidoo kale uu la leeyahay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale guddiga gaarka ah ee barnaamijkan qaabilsan kuwaas oo iyagana markaasi ka shaqeynaya dardargelinta howlaha barnaamijkan ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya aaga labaad waxa waaye ama sidoo kale aaga labaad oo ay mucaaradku ay gaareen waa dabdamiska waxa halkaas gaaray xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo kamid ah golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa oo isagana kamid ah golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Maxamed Xuseen Roble Cabdi Qeybdiid iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale iyagana waxa ay gaareen xaafadda dabdamiska ee magaalada Muqdisho caasimadda dalka xilligan halkaas ayayna sidoo kale ku hooyanayaan mas'uuliyiintan waxaana sidoo kale iyagana ay wadaan isku dubridida iyo sidoo kale abaabulkii ugu dambeeyay ee barnaamijka ka dhanka ah ee dowladda federaalka ee Soomaaliya go'aankan ayaana sidoo kale durbubo waxa markaas u muuqda in ay tahay mid iyadana halkaasi kumanaan shacab lagu diyaariyay oo iyagana ka qayb gali doona barnaamijka maalinimada birta kaasi oo si weyn markaasi looga soo shaqeeyay isla markaana dowladda Soomaaliya aynan markaasi ogoleen laakiin mucaaradku ay si qasab ah markaasi ay ku qabsan doonaan xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo kamid ah golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya oo isaga mar la hadlay warbaahinta waxa uu sidoo kale uu tilmaamay in ay soo gabagabowday waayihii dadka la caburin lahaa dadka shacabka waxa uu tilmaamay in ay banaanka u soo bixi doonaan xuquuqdooda ay dhaxsan doonaan isla markaana aanan cid laga yeeli doonin in ay dadkan shacabka ah masaakiinta ay markaasi ay dhibaatayso sida uu markaasi uu tilmaamay xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo kamid ah golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya Odowa oo isagana markaasi la hadlay warbaahinta waxa uu dhinaca kale uu tilmaamay in ay soo gabagaboobeen waayihii dhibaateynta dadka shacabka isla markaana ay soo dhamaatay xilligan iyo wixii ka dambeeyana aynan jiri doonin in dad shacab markaasi la dhibaateeyo sida uu tilmaamay birito waa maalin weyn sida uu xildhibaan Cabdiraxmaan Odowa uu tilmaamay waa maalin loo doodi doono dadka shacabka ee masaakiinta ah ee guryahooda laga barakiciyay waana maalin ay muhiim u tahay dadkan in ay si weyn markaas u diyaar garoobaan isla markaana iska difaacaan dowladda federaalka ee Soomaaliya aaga saddexaad waxa lagu qoray ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre waa degmada Dayniile iyo sidoo kale xaafadda Warlaliska iyadana halkaas waxa laga dhigi doonaa dowlatus aad u weyn oo ah mid markaas si weyn looga soo shaqeeyay isla markaana ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre isaga waxa uu sidoo kale uu diyaarsaday kumanaan shacabka ku nool xaafadaasi oo iyaga markaas si weyn u diidan dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana dowladda dhowr jeer oo kala duwan ku eedeeyay in ay xadgudub ay ku sameysay isla markaana ay ku tumatay dadkan markaas shacabka
toddobaadkii hore ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ay weerar ay ku qaadeen xaafadda Warlaliska ee degmada Daynile halkaas oo dowladdu ay doonaysay in ay burburin ay ka samayso laakiin dadka shacabka ahaa ayaana sidoo kale ka hortagay Khayre ayaana sidoo kale waxa la tilmaamay ninka kaliya oo wacdaraha ugu weyn markaas ka dhigi doono degmada Daynile ee gobolka Banaadir ee Muqdisho inuu isagu yahay maadaama beeshiisa ama sidoo kale reerkiisa uu taageero gaar ah uu ka haysto isla markaana ay soo bixi doonaan oo ay taageeri doonaan garab istaag buuxana markaasi ay u muujin doonaan wararka ugu dambeeyay iyo sidoo kale tabaabulka banaanbaxan saddexdaasi aagayo xilligan uu ka soconaya daqiiqad kastana waxba isbedeli karo dowladda federaalka Soomaaliya ciidamo fara badan ayay ku soo daadisay wadooyinka Muqdisho haddaba waxyaabaha ka soo kordho daqiiqadaha ugu horeeyo ayaan kula wadaagi doonaa